munaasabadan ballaaran oo ka qabsoontay hotelka haase magaalada Burco ay ahayd munaasabad lagu soo xidhaayay tababar kor lagu qaadiyay cilmiga ganacsada yaryar iyo sidoo kale kuwa dhexe oo socday muddo 2 toddobaad isla markaasina ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer. tababarkan ayaa waxaa ka qayb qaatay 40 xubnood oo kamid ah ganacsada kala duwan ee gobolka Togdheer. munaasabadan lagu soo gabagabeynayay tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidooyaasha wasaaradaha maaliyadda, ganacsiga iyo sidoo kale مسؤولين kala duwan oo kamid ah ganacsada kala duwan ee gobolka Togdheer. ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin kala duwan ka bixiyay ujeedada tababarkani ay qabatay rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer. gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxaan sugnay maanta inaynu soo xidhno tababar socday muddo 2 wiiga. tababarkaasi oo rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ay qabatay ganacsato reer Togdheer oo ah 40 ganacsade. runtii wuxuu ahaa training ay kharash badan, waqti badan iyo juhdi badan ku baxay. waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga dalan talaana waxa in kor loo qaado waxqabadka iyo wax soo saarka shaqaalaha, in la hagaajiyo adeega iyo service-ka loo qabto macaamiisha, in kor loo qaado shaqaalaha tayadiisa iyo qanaacada goobta shaqo ay joogaan iyagoo ku shaqeynaya hab mooraliya, in hoos loo dhigo shaqaalaha shaqo tagisteeda, in la xoojiyo habka shaqo abuurka. waxyaabahaas oo dhan waxa hoos marayaan marka la wanaajiyo ganacsigii ballaadho, wax soo saarkiisu kor u kaco, waxay imanayaan shaqo abuur. tababarkan waxa loo qabtay ganacsiga ama shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe. inta badan waxa laga yaabaa in la yiraahdo 90% shirkadaha yaryar ama ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe waa dadka bulshada shaqo abuurka u sameeya. inta soo dhawaad dawladda iyo shirkadaha waaweyn. taasaa markaa sababtay inaynu saarno culays badan. runtii lacag aad u fara badan runtii baa ku baxay. ma jirto cid naga caawisay oo aan ahayn xafiiska rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ayaa bixiyay dhammaan wixii ku baxay. aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay oo maartay aad iyo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ina kulansiiyay goobtan qiimaha leh. waana arin runtii nagu cusub inaynu isku tashano. runtii waxaanu aad ugu dadaalay inaanu ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga inaanu isfahansiino in ganacsatadu ay xafiiska ugu yimaadaan taariifadaha ama cashuuraha dawladdu ay ku waajibisay xaq loogu leeyahay. waxaan kala doodnay waxyaalaha aan ganacsatada aan xaq loogu lahayn ama maartay mararka qaar kood maartay soo dhaca oo aanu dawladda kala hadalno. geesta kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Goli oo ay jaamacaddii fududeysay tababarkan iyo sidoo kale xubno kamid ah ardayda ka qayb qaatay kuwaas oo si wada jir uga mahadnaqay mas'uuliyiinta rugta ganacsiga gobolka Togdheer. runtii waa arin farxad leh, waana markii ugu horeysay ee ay rugta ganacsiga gobolku muuqato. runtii markii ugu horeysay aan maqlay rugta ganacsiga gobolka Togdheer waxay ahayd markii la magacaabay Mustafa iyo Faarax iyo tiimkii la shaqeynay. maanta waxaa muuqata in rugta ganacsigu ay noqotay rugtii saxda ahayd. anoo kamid ah dadkii la tababaray kuna hadlaya guud ahaan inta la tababaray afkooda waxaanu si guud iyo si gaar ahaaneed ugu mahad celinaa rugta ganacsiga gobolka Togdheer oo barnaamijkan noo qaban qaabisay oo noo qabatay. runtii waxna ka bedeshay xirfadayadii aan ku shaqeyn jirnay iyo qaabkii aan u shaqeyn jirnay. tababarkiina la geliyayna uu yahay mid naga muuqda maanta. annana nahay dad tacabkii insha Allah ta'ala ka rumayn doona. guud ahaan waxaanu si guud iyo mar labaadba si gaar ahaan ugu mahad celinaa gudoomiyaha rugta ganacsiga aqoon-yahan Professor Mustafa Sheekh Maxamuud Cumar. rugta ganacsiga gobolka Togdheer iyo jaamacadda Goli ee iska kaashaday tababarkan qiimaha badan leh ay noo soo qabteen oo aan kulli aad iyo aad wax badan uga faa'iideysanay, wax badanna ka fahanay. markaa oo ganacsiga iyagu khaladaad badan uu ku jiray oo aanu la daaladhacaynay. run ahaantii aad iyo aad baan u qiimo iyo sharaf u lahaa tababarkan naloo soo qabtay. ugu dambeyntii hadaladii halkaasi laga soo jeedinayay waxaa soo afmeeray barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale sidooyaasha wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda Soomaaliland. waxaanay si wada jir ugu mahadnaqeen rugta ganacsiga gobolka Togdheer iyaguna dardaarano kala duwan u soo jeediyay ardaydaasi ka qayb qaatay tababarkani. rugta ganacsigu horta marka ugu horeysay waxa weeyaan waa dalad ka dhaxaysa ganacsatada gobolka Togdheer ay ku midowday weey. ganacsatadan yaryar ee maanta qalin jabisay waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa soo dhawaada وانتي سود وانينا واحد يدي شيء إنه أسعاد الجناعسية والشباب يدلحيسك المهم الكيدو
wuxuu baryahan gacanta ku hayay in badan imika ay ku mashquulsanaayeen sidii loo sameyn lahaa xeerkii kala xadiyada ganacsiga kaasoo wax weyn ka taraya ganacsigeena haddaanu nahay annaga wasaaradda horumarinta maaliyadda runtii waxaanu wada shaqayn dhow la leenahay cid kasta oo shaqo qabata sida rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga jaamacadaha cid kasta oo shaqaysaba maasha allah maanta waxaan ka soo qayb galay oo nasiibaan u yeeshay dhalinyaro firfircoon oo jaamacadihii ka soo baxday oo ganacsigii ay chamber of commerce ay u sii tababarayso runtii marka hore waxaan halkan jecelahay inaan hambaliyo iyo ducaba aan uga diro ardayda maanta halkan ku qalin jabisay seminaarka soconayay muddada kula saabsanaa in maaragtay kobcinta ganacsiga runtii waxaan jecelahay inuu cilmigaas ay barteen ama traininka ay barteen uu noqdo kii anfaca haddaan runtii siira dul taago ganacsiga sida dadka badankiisu og yahay barta ugu wanaagsan inuu ganacsigu ka bilaabmo waa stage-ka ama levelka imika joogtaan marka runtii waxaan idinkula dardaarmayaa idinku runtii waxaa hesheen ama haysataan fursado fara badan oo aanay helin ganacsatadii hore ee reer Soomaaliland waxa weeyaan waa markii ugu horeysay ee aan arko rugta ganacsi oo soo abaabushay tababar noocana cidina aanay ka caawin waxaan oran karaa waxay sameeyeen horumar lagu dayan karo oo runtii dadka u horseedaya in ay isku xidhnaadaan ugu dambeyntii waxa halkaasi shahaadooyinkani lagu guddoonsiiyay 40 ganacsato ee ka qayb qaatay tababarkani kor loogu qaadayo awoodda ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe waa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.